daawooyinkan oo loo qorsheeyay 10 tuulo in la gaarsiiyo oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa waxaa loogu talagalay inay qayb lixaad ka qaataan daryeelka iyo caafimaadka xoolaha. 10 tuulo oo ah reer guuraa isla markaana xoolo dhaqato badan ayaa waxa hore loogu tababaray daryeelayaal caafimaad oo loo carbiyay hababka looga hortago loona daaweeyo cudurrada had iyo goor ku dhaca xoolaha nool. munaasabadii maanta lagu bixinayay daawooyinkan oo ay wehelinayeen qalab aad u tiro badan ayaa waxa ka hadlay suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Cabdi Hindi waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda ay leeyihiin daawooyinkan isagoo tilmaamay in xilli ay ku habboon tahay la soo gaarsiiyo ay curteen roobabkii gugo lagana yaabo fayadhowr la'aanta ka jirta meelo badan oo ka tirsan gobolka Togdheer in ay cudurro ka dilaacaan. isuduwahan wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer waxa uu xuseen wasaaradoodu ay ku hawlan tahay dadaal loogu jirto doorka ay ku leeyihiin daryeelka xoolaha nool. madaxa hay'adda Fit Aid Maxamed Cabdilaahi oo iyagu hore u carbiyay ilaa in ka badan 40 xubnood oo ay u carbiyeen amaba se u leeyeen daryeelayaal caafimaad ayaa qalabkan waxa ay ku tilmaameen mid muhiimad gaar ah leh isla markaana loo baahan yahay in tuulooyinka dadka ku dhaqan ee xoolo dhaqateenka ah la gaarsiiyo muhiimadda ay leeyihiin daawooyinkan iyo sida loo isticmaalayo. agaasimaha hay'adda DAI oo ah hay'adii mashruucan maalgelisay ayaa iyaguna waxa ay tilmaameen in gobolkani guud ahaan uu yahay gobol xoolo dhaqateen u badan loona baahan yahay in mashruucan iyo aqoonta daryeelka caafimaadka la gaarsiiyo. Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa isaguna sharaxay noocyada daawooyinkan iyo qalabkan uu ka kooban yahay isagoo ah macallinkii tababaray daryeelayaashan caafimaad. waxa la gaarsiiyay todoba boqos oo ah tetracycline tetracycline oo tetracycline 20% iyo 5 xabo oo tetracycline 10% 5 xabo waa qofkiiba sulfa tablet waa 8 boqos weeyaan producer oo yana kan waxa lagu dhufaano hal mid daran chicken oo kan lagu siiyo caalka isna waxa la siiyay hal mid spray bam oo ah bamka halka yaala isagana waxa la siiyay hal mid waa cala qof weeyaan field kit back oo shandada qofka lagu talagalay inuu ku qaato qalabkan ayaa waxa uu daba socday wajiyo hore u horeeyay oo lagu tababaray kooxo ka socda tuulooyinkaasi oo iyagu wasaaradda xanaanada xoolaha la shaqeeya. waa Cabdi Sattaar Cabdilaahi Cali TV-ga qaranka Soomaaliland.